maskaxdani aad bay u yartay jidhkeenna marka lagu miisaamo bay yiraahdaan waa 2.5% wasniga jidhka waxay yiraahdaan waa 1330 gram meelahaas bay ku tilmaamaan isku celcelintu kiilo iyo xoogaa yar way maskaxda kugu jirta haweenkana bay yiraahdaan raggu 40 gram buu ka weeyay yani isku celcelinayana 40 gram bay ka miisaan yariyeen maskaxdaasi waxay isticmaashaa baa la yiraahdaa jidhku waxaad oxygen neefsato oo dhan dib u jiido rubuc kamida kaligeed baa cunta halaali waxaad oxygen cabto rubuc kamida maskaxdaas cabta maskaxda waxa ku jira balaayiin unugya ah maskaxda inugu jirta waxay yiraahdaan 22 decimeter kama taqaanay centimeter ma hoos uga sika decimeter 22 decimeter مربع يعني سكوير مربع يعني سكوير 22 decimeter تلاقي somewhat متر تلاقي somewhat ما لهم ولا كانيا وواحد ير سنتيمتر ودسيمتر 22 decimeter سكوير مسكحده بني ادم كم دي بيد هذا waxa ay qaadi kartaa 20 waxay qaadi kartaa 20 milyan oo volume ama book inta ku qoran bay qaadi kartaa ma u malaynaysaa in awood inta laga wadato waa 22 decimeter in kamid oo maskaxda sidata kamidi waxa ay qaadi kartaa bay leeyihiin 20 milyan oo mujallad oo mutawasit alxajmiya مثلا احد العلماء وبروفيسور كلا ماك روزيزن وكم علماء مسكحة دراسيسة جامعة كاليفورنيا سنوات بدن بو دراسيني كذبوا حليه هي هديبوا يري مسكحة بني آدمك مالين كسته 10 معلومات في الثانية الله شيء قبوا لي سكند كسته 10 شيء هدي الله شيء قبوا لي سكت كوال برقصي هل كان بالنسبة لحدا سكنه سكند كسته أما ثانية كسته أو كم إذا نلاش قفكه هدي الله شيء قبوا لي 10 شيء 10 معلومة الله شيء مدة لحدا صنادات الله جوه هبين إيام مالين تونا أن لك لتشوشين واحد قياسته سكند كسته 10 بالجو شيء يا شيء لحدا صنادات بنا الله جوه ضيّه هبين إيام مالين بنا والله جوه آخرين إياه وحلي معلومات كاسي مسكحة بني آدم كمبو حينيان 1 على مليون من حجم العقل بولي 1 على مليون من حجم العقل ستدرادت بي وحي كتل مامان إنسانكو مسكحة كتشرتا أود ألسي ما با استعمال بيلين 10% مو يعني بولكيبة طبعا أيوك استعمال بيلين waxaa lagu tilmaamaa qoladan computersku waxay ku xisaabtamaan gigahertz inuu processorku inta uu gigahertz uu per second jari karo waxay yiraahdaan maskaxda bini aadamku 400 milyan amaliye xisaab bay fi daqiiqa samayn kartaa waxay ku tilmaamaan maskaxda bini aadamku 30 bilyan macluuma ay fi thaniya mu'aalaja ku samayn kartaa yani computer dunida yalla saamo ma qabto waxa lagu tilmaamaa maskaxda bini aadamka iyo xidhiidhada unugyadaadu leeyihiin 600 mayl cable-ka iyo wire-ka la dhigi karo ayaa u dhaxeeya bay leeyihiin iyada xidhiidhadeeda daakiraduna waxay ku xidhantahay bay leeyihiin inta xidhiidh ay samayso waxay ku tilmaamaan ahad ululamaa baa wuxuu leeyahay haddii buu yidhi dunida waxa TV iyo telefisyon iyo raadaar iyo telegraph iyo telecommunication waxa wax lagu xidhiidhiyo dunida yaala hadii inta la yareeyo buu yiri aqli bini aadamka kala loo ekaysiiyo waxa soo dhan waxa iskaga badan buu leeyahay bini aadamka maskaxdiisa yani all telephone dunida yaala waxa laaliyo waxa switch dunida yaalo la isku daro maskaxda adiga ku saaran inta ay process gareyn kartaa ka badan sida daraadeed ayu ahad ulama waxa uu ku tilmaamaya haddaynu isticmaali lahayn buu yiri xaasuub ama computer maskaxda uun bal ku dhow haddaynu isnaana sameeya waxa dhici lahayd buu inaynu sameeyno guri 10 dabaq ka kooban oo 770 mitir square ku yaala buu leeyahay
يعني بني آدم كيبلدي سي وحي سادوس كو خدخدو كمبيوتر استرادو مسكخدان يرا adiga ilaahay kugu rakibay shaqaday qabato wax u eeg wax qaban kara in la sameeyo waxay qaadan lahayd buu leeyahay xajmiga 770 mitir square oo 10 dabaq kor loo dhisay xajmi xaasuub leeg buu leeyahay barnaamijyadiisa imisa la sameyn karaa buu leeyahay taayada reeba yani programska ku shaqeyn lahaa inta lagu sameyn karayo iyada reeba waxa meesha yaala wuxuu yahay طاقada inugu jirta inta ay leeg tahay iyo waxaynu ku isticmaalnaa aad u kala yar idan inagu waxaynu shaqo ka dhiganay طاقada inta leeg ama awoodda inta leeg inaynu catilo oo aanay waxba qabanin